بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن داوديال إذا هانتما ميل كستو عندنا جلس عطان كنا سود هذا برنامج جارو إن ديرة كوساري دونا الرقية الشرعي جا وحي تهي يمدون كان دم بخلادات ككدعة تدخل شقية نظام كالرقية ده وحنا نقوم مرتيه برنامج كان الشيخ جامع حسين وكم ده علماء الدب جا المجالات البرعاء كان هو الجريج وبالله بدنا وكم ده الصومالي الآن وحاول الشيخ جامع السود وكلكم مقعدين يتعودات وحنا هذا برنامج كا أنا الشيخ جامع كوي دين دونا سؤالك وصابسن رقية الشرعي جا خلادات كأنت بدن كدعة حرمها الدب جا سنة ده ضم به الشيخ جامع كسودو برنامج ودو إن شاء الله جزاك الله خير. الشيخ جامع أولاً رقية الشرعي جاي محيطها شرحات كوبن بربلشة كسي رقية الشرعية محيطها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رقية الشرعي جاء وحوي اللغة هان مركل لأجو. علماء اللغة وحي كت المامان إن يتهاي مجنجل إلهي سبحانه وتعالى وحوي لما جنجليه iyadoo ilaahay laga magan galayo waxa weeye sheedaanka iyo waxa weeye jinka kiisa madaxa adag oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa weeye lagaga erkanayo lagaga tiirsanayo luqad ahaan intaas waxa weeye culimadu ay ku soo maaragtay ururiyaan si kooban sharci ahaan ama isdilaax ahaan waxa loo yaqaanaa waxa weeye ruqyada waa waxa weeye lagu tufayo qofka waxa weeye muslimka ah isagoo waxa weeye lagaga tufayo waxa weeye xanuunada iyo aafaadka waxa weeye ku dhaca jirka iyo waxa weeye nafta ibn aadamka ku dhaca intaas ayaa waxa weeye la yiraahdaa ruqya waxa weeye loo yaqaana ruqyadu waa sida weeyaan sharci ahaan marka la eegana waxa jira qaar badan oo kamid ah xarumaha dibiga dadka haysta waxay wax ku daweeyaan biyo ay sheegeen inay yihiin 10 oo ay quraan ku akhriyeen halkii ay dadka quraan ku akhriyi lahaayeen taasi miyaanay ruqyada sharciga ahayd ka hor imanay ruqyada waxa weeye sharciga ah de shuruud kulli insha Allah inuu dib ka sheegi doono waxa weeye u gaarabay waxa weeye leedahay waana arin waxa weeye khilaafsan waxa weeye shariicada waxa weeye islaamka iyo daaweyntii waxa weeye saxda ahayd ee waxa weeye qofka laga doonayay biyaha waxa weeye qofka lagu akhriyayo waxa weeye maaragtay quraanka lagu tufayo quraanka inta biyaha lagu tufo qofku waxa weeye kaalmaati ahaan waa u qaadan karaa isagoo waxa weeye cabaya kuna waxa weeye maydhanaya culimo badanna waxa weeye way ku talisaa waxa weeye maaragtay biyaha la isticmaalo la cabo insha Allah laakiin waa shay iska mubaaxa in biyaha waxa weeye qofku isagu cabo kuna maydho nusuusta shariicadu waxay ognahay inay reebtay in xirfad shaqo laga dhigto qaab habka ruqyada lacag badanna dadka lagaga qaado xilligan arintaas way jirtaa markaas sidee bay xalaal ku noqonaysaa in dadka arinta noocaas ay maanta jirto arinta waxa weeye nusuustu shayga ay reebto ee waxa weeye ay xarimto xaaraannimo ayaa waxa weeye uu ku baaqi yahay laakiin waxa weeye arinta khaladaad baa waxa weeye ku jira oo waxa weeye qofka muslimka ah ee waxa weeye la daweynayo waa mas'uuliyad ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu qoortiisa saaray qofkan waxa weeye wax daweynayo waxa waajib ku ah waxa weeye qofka inuu u naxariisto oo waxa weeye u dhimriyo oo wixii uu heli karo waxa weeye aanu dhaafin ama wax gaar ah oo weyn aanu waxa weeye iska arifanin waa arin waxa weeye maaragtay maqsadkii ruqyada ayay waxa weeye khilaafsan tahay qofka sharci ahaan waa banaantay in wax laga qaado oo waxa weeye de saxaabadiiba waa ka sugnaatay nabiguna kaleey salaatu wasalaam waxa weeye waa taqriiriyay oo waxa weeye maaragtay waa sugay in qofka wax laga qaado laakiin shayga la diidan yahay waxa weeye waa xadgudubka lagu xadgudbayo waxa weeye qofka muslimka ah hantidiisa iyo waxa weeye xoolihiisa iyadoo shardi lagaga dhigayo waxa weeye waxa inta leeg hadaadan bixin oo xoolo tandhaafo waxa weeye aanu qaadi kareynin waxa weeye waa arin waxa weeye runtii xaraama bay waxa weeye isu bedelaysaa maxaa yeelay waxa weeye runtii waxa la soo wariyay oo waxa weeye dad badan layga sheegay nin waxa weeye dadkan wax daweeye kamid ah inuu waxa weeye reer iska dan yara oo waxa weeye guurta ah oo waxa weeye dadka baadiyaha degan inuu u tagay oo waxa weeye uu ku yiri ninkii reerka lahaa oo xanuunsanayay muddo dhowr iyo waxa weeye 20 sano xanuunsanayay marka waxa weeye waxa laga waramay inuu waxa weeye ku yiri nin dadka wax daweeyahay waa ku daweynaya ninkaasi adduunyo sida la sheegay waxa weeye hal awr oo uu ku guuro rarto ayaa waxa weeye u lahaa ninkii markuu waxa weeye hantidii uu arkay inuu awrkaas oo guriga joogo wuxuu ku kalifay inuu yiraahdo awrkaas ayaan waxa weeye ku daweynay ila awrkaad bixisana waxa weeye
wax dawaan ku samayn karaa ma jirto awrkiibu waxa weeye soo iibiyay lacag ilaa $650 ayaa waxa weeye awrkii laga siistay maadaama si degdeg waxa weeye loo iibinayay dabeetana waxa weeye 650 kiiba wuxuu ka codsaday war caruurta waxa weeye iga baahan oo waxa weeye waxay cunaan uma hayo hantina awrkaasaan waxa weeye leeyahay wax ii reebo waxaan raashin siisto ii reeb uu ka diiday inuu shilin waxa weeye u reebo marka waxyaabaha noocaas oo kala waa ruqiya waxa weeye baadilaba waxa weeye noqonaysa muharrama markay halka gaadho waxa weeye sharcigu waa adkaynaya waxa weeye waa reebaya ku tarkiga falka iyo waxa weeye ku xadgudubka waxa weeye xoolaha dadka in waxa weeye lagu xadgudbo in waxa weeye si maaragtay khilaafsan waxa weeye sidii wax looga qaadayo ruqyada insha Allah intaasaan ku soo ururinayo su'aashaana sameecad in la daaro oo qofka bukaanka ah ee u soo doontay daweyn xarunta cilaajka in la dhageysiiyo halkii quraan lagu akhri lahaa taasi sidee ku noqonaysaa qofkii daweyn ugu noqonaysaa sharciga arintaasi way khilaafsantay iyaduna waxa weeye ruqyada sharciga waa mukhalafaadka waxa weeye inagu soo kordhay waxa weeye dhawaan oo waxa weeye inagu soo badanayo waliba ruqiya waxa weeye waxa la yiraahdaa marka waxa weeye ay culimadu sii sharaxayaan inagu wax kamid ah istilaaxeedii baynu qaadanay hal istilaax baynu dooranay laakiin istilaaxyo fara badan baa waxa weeye culimadu ay keenaan istilaaxyada waxa weeye ay culimadu keenaan sharciyan waxa kamid ah ruqyada waxa weeye ruqyadu inay tahay nafathun macaha riiqun khafiif waxa weeye inay tahay tufmo qofka waxa weeye lagu tufayo quraanka iyo asmaada ilaahay iyo waxa weeye adciyada waaridka iyadoo waxa weeye riiq yar waxa weeye ay la socoto marka taana waxa weeye sameecadu ma suuro gelinayso qofkii sameecad inta loo daaro halka la fadhiisiyo leeyada dhigayso waxa weeye ruqya sharciya taa lama yiraahdo hadduu sameecad waxa weeye doonayo uu ku dawaabayo dee moobiladii bay ku jiraan YouTube-kii baa quraanku ku jira rekoodha laga helaa sameecadaha imika ba laga cabanaya waxa weeye la yaala dee kuwaas iska dhageysan la gurigiisa fadhiisan la inta albaabka xidho marka waxa weeye ruqyada waa in la saxaa oo meedaankeedii saxda ah waxa weeye lagu soo celiyaa waxa weeye waa ruqyada saxda ah waxa weeye qofka tufmadaadu inay gaadho oo waxa weeye aad ku tufto afuufta ayaa waxa weeye maartay asala waxaan ognahay habka rusheyntu inuu noqday qayb kamid ah xarumaha cilaajku ay ku shaqeeyaan oo noqday hab daweyna wax xiliyadan dambe la isticmaalo in koox dad mar lagu wada akhriyo quraan oo aan la dhageysanin qof walba cabashadiisii iyo xanuunkii uu ka cabanayay taasi sidee bay ruqyada sharciga u waafaqaysaa arintaasina iyaduna waxa weeye waa xadgudubka ay waxa weeye soo kordhiyeen waliba waqtigan casrigan aynu joogno muddadii imika 3 sano ugu dambeeyay ugu badnaan 4 sano waxa weeye ugu dambeeyay waa wax soo kordhay arintaasi waa asla laha fi ruqya sharciya waxa weeye haday de wax daliil hayaan iyaga keeni doona waa arin aan asal ku lahayn waxa weeye ruqyada waxa weeye sharciga ruqyada sharciga waxyaabaha shuruudda u ah ee qofka raaqiga ah waxa weeye laga rabo waxa kamida waxa weeye inuu qofka waxa weeye qof qaabilo qofka markuu qaabilo tashkhiis alxaala wax loo yaqaano oo ah qofka waxa weeye xaaladiisa in loo kuur galo oo bal qofkan sida loo hayo iyo sidoo uu xanuunsanayo iyo meelaha laga hayo iyo waxa weeye maaragtay xanuunada haya sida ay yihiin waxa weeye maaragtay loo kuur galo oo la ogaado ayaa waxa weeye qofka raaqiga laga doonaya taasina waxa weeye ma suuro gelinayso qofkii markuu dad badan isu keeno waxa weeye arin khiyaano ah oo waxa weeye qisha ayaa waxa weeye ku jirta nabiguna kaleey salaatu wasalaam waxa uu yiri man ghashana falaysa minna qofkii waxa weeye khiyaama oo waxa weeye wax maaragtay khiyaano ah ummadeeda ula yimaada nagama mid ah waa deeriyay nabiga kaleey salaatu wasalaam deero ayaa waxa weeye nabigu uu ku xukumay marka waxa weeye arintaas waa arin sharciga khilaafsan oo waxa weeye iminka la soo kordhiyay waqtiyadan dambe casrigan dambe waa arin waxa weeye bidca ah oo ku soo waxa weeye maaragtay kordhay waxa weeye daaweyntii iyo waxa weeye arintii quraanka dadka lagu akhriyay in waxa weeye ummadii waxa weeye mukhalafaad sharciya ahna waa ku jiraan oo waxa weeye qofkii dumar ahayd quraankan waxaan ognahay inuu waxa weeye yahay shay waxa weeye maaragtay ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu karaameeyay oo ilaahay uu weyneeyay waxa weeye in dadkii la yiraahdo korka la idinkaga shubaya idinkoo maryihiina gashan oo waxa weeye dabatana lagu joogsado oo waxa weeye quraanka lagu tunto oo dumarka laftoodii aan la kala hufinay waxa weeye haday doonaan deeq ku caadada ilaahay wixii la midka ay ku jiraan in waxa weeye biyaha lagu wada shubo oo laga simaa waxa weeye waa arin waxa weeye baadila weeyaan waa arin waxa weeye aan sugnayn waa arin waxa weeye wax daliil iyo xujo ah maanta hadii aan ka dalbo waxa weeye aan u keeni karin in ummad inta meel la wada fadhiisiyo oo waxa weeye dumarka dabeetana marka biyaha lagu shubay cawrooyinkoodii ay muuqdaan oo mariyay ay ku dhagaan waa arin waxa weeye sharciyadeena khaalifsan sheekh jaamacu hadii ay sida tahay
maadaama aad ka mid tahay xarumaha dibbiga dadka ka shaqeeya ama haystaba mi ila way saameynaysaa khaladaadka noocaas ee dhacaya shariicada islaamka ka hor imanaya ma u tagteen dadka noocaas ee sameynaya khaladaadka noocaas oo ma kala hadasheen oo ma kala taliseen inaanay arrintani shariicada islaamka waafaqsanayn walahi dadkaas kulay dhul fog bay waxa weeye kala joogaan nasaaix hore waxa weeye anigu waa diray oo waxa weeye ku saabsan arrinta waxa weeye qofkii qaadanaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku hanuuninayo laakiin se uma ega dad waxa weeye wax qaadanaya oo waxa weeye xujo iyo sharci inay u soo noqdaan waxa weeye dad qaadanaya aniga ilama ega ma jirta jamciyad idin midayso oo aad arrimaha noocan kaga tashataan xarumaha cilaajyada gaar ahaan magaalada Burco wallahi daladaasi waxa weeye waa jirtay hore waa u jirtay laakiin imika waxa weeye waa fagfagantay insha Allah waana la xoojinaya waana la soo celinayaa culimadoodana waxa weeye muddooyinka maaragtay aan sii fogeyn insha Allah kulli waa la kulmay oo waxa weeye arrinta waa laga wada hadlo waa la isla soo qaaday iyo waxa weeye mukhalafaadka laftooda in maaragtay sidii loo sixi karo la saxo waxa weeye waa la isla soo qaaday xarumaha cilaajyadu dhaqaatiirta iyaga ka kharash badan bulsho badan ayaana ka cabanayso arrinta cadeynaysa haddii xalku sidaa yahay maxay kaga duwan yihiin goobaha ganacsiga asal ahaan waxa weeye ruqyada qofka waxa weeye wax waa lagaga qaadi karaa laakiin waxaasi waa inuu noqdo wax qadara oo qofka taagtiisa waxa weeye aan dhaafsiisnayn laakiin qofka haddii waxa weeye uu taagtiisa dhaafo oo waxa weeye maaragtay qofka mucaalajka wax daweynaya waxyaabaha laga rabo iyaga laftooda waxa kamid ah qofka maalkiisa inaanu u muuqano qofka jeebkiisa aanu ku maqnaanin war qofkan waxa weeye Ilaahay dartii inaad ugu gargaarto oo waxa weeye bal horta waxaagii aad marka hore bal dariiqii sharciga ahayd aad marto oo qofkan la daweeyo oo waxa weeye maaragtay marka kadib qofku isna bedelka bixiyo saasa waxa weeye asala laakiin duruufo waxa weeye maanta jira oo waxa weeye ayaa taalifteeda keenaya oo madaariska quraanka waad aragto sharciyan ma banaana wax laga qaado laakiin daruuro ahaan ayaa waxa weeye ay banaan tahay marka taana mar walba waxaan ku celcelinaynaa oo waxa weeye aan taaganahay qofka wax awoodiisa dhaafsiisan inaan waxa weeye laga qaadi karin laakiin asal ahaan wax waa laga qaadi karaa waxaasi haba yaraado laakiin wax waa laga qaadi karaa oo taade shariicada ayaa waxa weeye ogolaatay nabiguna kaleey salaatu wasalaam sida aynu soo tilmaamnay saxaabadu waa isula yimaadeen iyagoo arrinta ka shaki qaba inta qof waxa weeye la qaniinay ay ku tufeen ayay saxaabadii nabiga kaleey salaatu wasalaam ay isula yimaadeen min xadiith al-ladiq waxa weeye xadiith abi saciid oo nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu ku yiri ruqyada waxa weeye xaqaba samayseen idinkuna waxa weeye wax qaataana wax iga siiya si waxa weeye ay laabtooda ugu degto marka asal ahaan wax waa laga qaadi karaa laakiin waxaas mar walba weyn in xad ka dhaafin tan waxa weeye aad leedahay ganacsi ahaantana waxa weeye haddii ay jirtoba ay dhacdo waa arrin waxa weeye khilaafsan maqaasida laga doonayo qofka raaqiga iyo ruqyada lafteeda maqaasideedu way khilaafsanta oo waxa weeye ruqyada asalkeedu waxa weeye qofkan in waxa weeye lagu anfaco intaas waxa weeye asala waxa jira dad sameeya dawooyinkan dabiiciga ah oo kamid ah xarumaha cilaajyada ama u qaabilsanba waxa dhacday in dad soconaya oo bukaana oo u yimi ay dawadaasi sababtay inay dhintaan maxay tahay arrintaasi sababta keenaysaa samxuu yahay halkeed wallahi arrintaasi waa arrin waxa weeye haddii ay dhacdo oo ay jirto waa arrin waxa weeye musiibo qof waxa weeye muslima oo waxa weeye maaragtay wax ku soo mooday inuu waxa weeye gacantaada si fudud waxa weeye u sababsado arrin waxa weeye la yareysan karo oo la dhayalsan karo oo la fudaydsan karo waxa weeye runtii ma aha halka dhowr arrimood baa waxa weeye ka dhalanaya qofkii waxa weeye dhakhtar iska dhiga waxa weeye culimaa fiqhi waxa weeye qaacido waxa weeye macruufa bay waxa weeye leeyihiin qofka dhakhtar iska dhiga oo waxa weeye aan dhakhtar ahayn man tadabbaba walaysa lahu dib fa alayhi bidamaan waxa weeye qofka dhakhtar iska dhiga oo waxa weeye isagaan dhakhtar ahayn intuu dhakhtar iska dhigo qof waxa weeye wax siiya oo qofkii ku waxyeeloobo ama xubin waxa ka noqdo ama waxa weeye naftiisiba waxa weeye ku tagtee waxa lagu leeyahay waxa weeye diyadii oo waxa weeye ayaa laga qaadaya qofka waxa weeye lagu leeyahay si kale hadaynu waxa weeye u dhigno arrinta maxaa waxa weeye laga qaban karaa ama waxa weeye maxaa laga talin karaa qofku waxa weeye waxaanu dadka siinayeen inuu aqoon u yeesho oo waxa weeye uu ogaado waxan waxa weeye waxyeeladeeda inuu ogaado marka hore waxtarkeedana waxa weeye inuu ogaado shayga hadii waxa weeye manfaacadiisa iyo madaradiisu hadii waxa weeye ay isleegaadaan waa laga tagaya oo waxa weeye taa madarada ayaa asal looga dhigaya lagu xambaaraya dadka qofku waxa weeye waa ka tagaya hadii waxa weeye shaygu uu nus noqdo
waxa weeye sida aynu sheegnay waa laga dhaqaaqaya insha Allah dadkaana kulli shayga hadii madaradiisa iyo manfaacadiisa waxa weeye sida hore aynu u sheegnay ay maaragtay islaagaadaan waa laga tagaya shaygii waxa weeye manfaacana lahaa madarana waxa weeye lahaa qofka wax daweynaya waxa ku waajiba madarada ku jirta inta leegtay inuu ogaado in laga suulin karana waxa weeye inuu ogaado kayfiyada waxa weeye wax loo qaadanaya inuu barto inuu yaqaano waxa weeye maaragtay shayga waxa weeye maaragtay inta laga qaadanayo kamiyada laga qaadanayna waxa weeye inuu garanayo waxyaabaha hadii waxa weeye aanu garanaynin oo aanu waxba kala socon waxa weeye arintaasi waa arin aad iyo aad waxa weeye u khatara waxaana waajib ku arinta inuu iska daayo maadaama aanu garanayno aqoon u lahayn inuu faraha ka qaado naftiisana waxa weeye aanu dhib soo jeedin muslimiinta kalena waxa weeye aanu dhibaataynin insha Allah intaas aan waxa weeye ku soo ururinaya tama waxa dhacda in xanuuno dhakhaatiirtu ay daweeyaan oo caadiyan loo yaqaan inay yihiin dii xanuuno dhakhaatiiruna ay daweeyaan oo ay ka shaqeeyaan xarumaha caafimaadka oo loo tabi karo daweyntooda oo goobaha ruqyada muddooyinkan dambe ay sheegtaan in iyagu daweynayaan waxa kamid ah gaasriga waxa kamid ah maxay beer xanuunka waxa kamid ah xiiqda xanuunada noocaas markii ay sheegtaan dad aan aqoon badan u lahayn aan caafimaadka u lahayn ama dad aan aqoon caafimaad ba lahayn bulshadina qiyaasta ay siinayaan aan la garan karin haddii doona qiyaasta ay bixinayaan ba dhibaato keeni karto arintaasi miyaanay arin dhibaato ku noqonaysaa hayn dhigay nuqsaan dukalle qofku wixii uu aqoon u leeyahay inuu ku shaqeeyo sida dhakhtarku uu shaqeynayo horta quraanku arintan waxa weeye asal ba waxa weeye quraan u ah laakiin dadkeena meel kale ula kacay oo waxa weeye la khaldamay asalku waxa weeye waa qofka quraan in lagu tufo oo waxa weeye lagu daweeyaa asal hadii waxa weeye laga maarmi waayay oo waxa weeye waxyaabo kale loo baahday daweyn waxa weeye aqoonteeda la helaa waa waajib weeyaan sidii baad hore baan u sheegnay waxa weeye maaragtay shayga dhibkiisa iyo dheeftiisa in la garanayo waxa weeye xanuuno waxa jira hadduu qofku leeyahay dawada aanu qaadan karin oo laga ilaalinayo taana waxa weeye waa shay waxa weeye laga rabo qofku deeyno axwaasha iyo cilmiga inuu wax ka garanayo hadii waxa weeye aan waxba ka garanayna waa arin waxa weeye runtii aad waxa weeye looga dayranayo xaalkiisa waxaan u qaadanayo lafteeda xalaalnimadiisa iyo waxa weeye maaragtay ay culimadu aad waxa weeye u shaki galiyaan maadaama wixii aanu aqoon waxa weeye aanu u lahayn ama lagaba yaabo inuu dadkii waxa weeye ku dhibaateeyo xalaalnimadeedana waxa weeye maaragtay waa laga dayriyaa qofkuna waxaan uu wado iyo wuxuu laabtiisa marinaya calooshiisa geynayaba inuu xalaal miirto ayaa waxa weeye u fiican oo waxa weeye waa laga xisaabtamaya marka arintaas wallahi dhaliishaas waa dhaliil jirta waa wax dhici kara waxaan arkayaa waqtiyadan dambe dad badan oo ku soo biiraya waxa weeye majaalkan aqoontoodana waxa weeye aan la garanayn marka insha Allah kulliba in la saxo waxa weeye maaragtay bal cilmigooda cala aqal hadii aan wixii iska deeynin bal kor loo qaado waa arin wax weeye nagu waajiba weey maxay shuruudaha looga baahan yahay qofka furanaya xarun cilaaj wallahi shuruudaha qofka wax tufaya waxa weeye dadka wax ku tufaya shuruudaha laga rabaa waa shuruudo badan laakiin insha Allah waxa weeye waynu soo koobinaa maadaama waxa weeye barnaamijku kooban yahay waynu soo koobinaa arinta koobaad waxa weeye laga doonayaa waxa weeyaan waa inuu waxa weeye aqoon u leeyahay waxa weeye arintan uu qabanayo aqoon buuxda oo waxa weeye tafa waa inuu leeyahay markaan leeyahay inuu aqoon u leeyahay wax badan baa soo gudagalay waxa soo gudagalay aan yacrifa bi usuli diin inuu garanayo waxa weeye usuushi diinta inuu waxa weeye garanayo waxa weeye maaragtay furuucdi diinta oo maxaa qofkan u xalaala maxaa ka xaaraana maxaa waxa weeye loo ogoliyay inuu sameeyo maxaan loo ogolay inuu loo diiday inuu sameeyo waa inuu garanayo usuul diin waa inuu waxa weeye macrifo u leeyahay iyo waxa weeye shariicadii taasa waxa weeye asalka koobaad asalka labaad waxa weeye laga doonayaa maadaama oo wax u tafaruqay waxa weeye inuu dad wax taro dadkiina inaanu iyagana dib ku noqon iyo culays iyo waxyeelay inaanu ku noqone inuu waxa weeye ku dadaalo inuu waxa weeye aqoonteedii la yimaado tii waxa weeye maaragtay haday tahay dawooyinkii waxa weeye sidoo u baran lahaa haday tahay waxa weeye ta dhakhtarka waxa weeye waa inuu bartaa oo waayo systemkii jirka iyo dhiigagiisa u shaqeynayeen dawooyinkiisa dhiiga waxa weeye u qaadanayay waxa soo dhan inuu wax ka ogaado oo waxa weeye maaragtay wax ka bartaa laga rabaa tan kale dhirtana inuu si waxa weeye mustaqil iyadana u bartaa laga rabaa taasi waxa weeye waa hal waxa weeye shardi oo isxambaarsan arinta waxa weeye labaad ee laga doonayaa waxa weeyaan waa inuu yahay saxiix al-aqeeda qof aqeedadiisu waxa weeye ay saxan tahay qof waxa weeye aqeedadiisu tashuush ku jiro oo waxa weeye aaminaadii uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo kalsoonidiisa aanay dhameystirnayn waxa weeye wax ma daweyn karo wayna aqeedadiisa aqeeda saxiixa ay tahay
wayna caqiido tahay waxa weeye caqiidadii waxa weeye salafka caqiido waxa weeye waafaqsan oo sidii salafku waxa weeye ka caqiido dhigtaan waynu ka caqiido dhigto wax kale haduu la yimaado de waxa weeye waa lagu radinaya waa lagu celinaya arinta saddexaad waxa weeye laga doonaya waxa weeye al-ikhlaasu lillah waxa weeye amalkan uu qabanayo waxa weeye ikhlaas inuu ula yimaado oo ilaahay dartii waxa weeye ay ka tahay ee aan ka ahayn waxa weeye xoolo ururso dadkan waxa weeye ka shaqeyso had iyo jeer waxyaabaha culimadu aadka uga dayriyaan ay ka digaan waxa kamida waxa weeye ruqyada qofku waxa laga yaabaa isagoo wanaagsan inuu galo laakiin markuu muddo ku jiro inuu ku dhaxsin biro dhaxdo wixii uu yiraahdo ku shaqeyso adduunka raadso waxa weeye ku xamaal tago de wax shaqo uu ka dhigto marka waxa weeye taana culimadu had iyo jeer way ka dayriyaan waxyaabaha waxa weeye laga doonayo shardiga afraad aynu ka dhigi karno waxa kamida أن يعلم مداخل الشيطان وحوي إنه قرنايو وحوي ميلها الشيطان كو قالوا محينو تاوجا تشيدنا وحنو جا تشيدنا وحوي قفكو شيطان كيما دام ودجال لقليه الشيطان كان دجال كله وحوي لقليه إمام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام با وحوي علماء وحي كسرران وحوي قصة قف وحوي حنون الصدي وحنونكيسين la diiwan kar way culimada ay u taag waayeen inta quraanka ku akhriyeen shaytaan waxa weeye madax adag intuu galay uu ku yidhi bixiba maayo wadabatana sheekhu uu yimiyo waxa weeye dabatana quraan waxa weeye uu ku akhriyay dabatana waxa uu ku yidhi bax oo yidhi sheekh waan baxaya laakiin shardi baan ku baxaya shardigaan ku baxaya waxa weeye waa karaamadaada adiga ayaan ku baxaya taa muxuu shaytaanku uga danlay wuxuu uga danlay qofkan ikhlaaskiisii iyo lillaahiyadii arintan uu ka lahaa inuu waxa weeye maaragtay uu waasiyo marka inuu garanayo meelaha shaytaanku galo marka sheekhu wuxuu ku yiri ukhruj daa'atan lillahi wa rasuuli wa ilaahi daacadiisa adigoo adeecayo amarka ilaahay qaadanaya iyo amarkii rasuulku ina faray oo ah ina dulmigan aad iska dayso waxa weeye ka bax qofkan marka de hadii markii uu shaytaanku ku yiraahdo karaamadaadaan kaga baxaya hadaad isafufto aad tiraahdo war karaamaan leeyahay waxa weeye nin weyn baan ahayo waxa weeye aniga waxba la iga aqbalaayo hawshaydu meel sare maraysa de waa arin waxa weeye sharciga waa khilaafsan waa arin waxa weeye shaytaanku uu kugu jabinayo markaasana waxa weeye kugu dambayso de xariga ilaahay iyo waxa weeye ikhlaaskii iyo wixii oo dhan waxa weeye waa jabisay marka insha Allah de kulli shuruud badan baa laga doonayaa haddaan inta insha Allah iskaga soo koobno waxaan leeyahay waxba ka iftiimi kara insha Allah هاد كون ليك شجاعو waxa jira ashkhas kamida waxa jira ashkhas kamida dadka wax ku dabeeyba qaabka rajada wax ku dabeeyba oo habka online ka ku shaqeeya waxaan ognahay in nafas ama kafitaan aayad quraaniya kar ay tahay ruqyada sharciga ah sideebay marka ruqyada sharciga ahayd ku noqonaysa qof jooga qaarad kale ama dal kale oo hab online wax ka akhriyay maadaama la doonayo kafitaanka qofkan uu gaaro arintaasi waxa weeye aniga shakhsi ahaan waxa weeye hortay anigu waxa weeye inta badan ma sameeyo qof isagu iga hari waayo oo aan isaga waxa weeye isleeyay niyadu ka xumaan waa macquul inaan waxa weeye maaragtay ku qanciyaan ku raado waan ku akhriyaya oo isagu iska jeclaysta laakiin sida waxa weeye ruqyada sharciga amarka laga hadlay wixii waxa weeye de waa wax shuruud laho waxa weeye la garanayo arintaasi arin waxa weeye wanaagsan ma aha arin waxa weeye ruqyadii maaragtay khilaafsan weey waxa weeye ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala arinta aad iyo aad waxa weeye u adkeeyo waxa weeye uga digay waxa weeye ahad ashradatihi baan waxa weeye uu kaga hadlay oo waxa weeye maaragtay uu kaga waramay arintaasi inaanay marnaba suurtagal ahayn inuu waxa weeye qofka muslimkii uu sameeyo ama waxa weeye qofkii uu ku dawoobo حتى وحوي أشرطة اللي دقيسني وحوي ماركتي اللي دقيسيجا أيها شيخ ودي ماركتي وحوي اللي قد جم مرسؤال اللي جويدي استفتاء اللي جويدي وحوي واديري مركا وحوي ما دام رقيادي الشروط دي أنا لما يسترمين أرنت أنا وحلنا وأرن كلا يضنا وحوي ماركتي وحكسر من كران هل يسكت أيو قفكي وحوي كوي مادة وحوي ماركتي أنا كنت فتاون كي كلنا وحوي دي أدو عذر دارتا يا وحوي ونكسر waxaan soo gaarnay sheekh jaamac barnaamijka qaybihiisa ugu dambeeyay marka waxaan doonaynaa maadaama su'aalo badan aan ku soo weydiinay inaan kaga yar hakarno ama su'aalihii yar bedelo hore markaan su'aal ku weydiino adiga gaar ahaan inta shaqada ku jirtay waxa kugu yaabnaa inta ku jirtay shaqada ruqyada oo ku soo maray wallahi taasi waa arin waxa weeye culeyskeeda leh la yaabo badan waxa weeye waan arkay waxa kugu yaabnaa lama oran karo laakiin la yaabo badan ayaa waxa weeye runtii aan arkay mid iyo laba iyo saddex hadaynu ka soo qaadano
waxyaabaha runtii igu saamaynta badnaa intii aan majaalkan ku jiray waxa kamid ah carqaladna waxa weeye dhinac ka noqotay iyada lafteedu ninba waxa weeye ii yimi wuxuu iga codsaday inaan gurigiisa u raaco oo waxa weeye xaaskiisii xanuunsanaysa waxa weeye aan quraan ku tufo ninkuna nin waxa weeye safar ku maqan oo waqti dheer maqnaa muddo ilaa 7 sano ah buu ahaa kadib buu reerka yimi marka gabadhii oo juucsanayay waxbuu yimi marka wuxuu iga codsaday inaan u ixsaan sameeyo intaan meesheeda ka tago aan raaco gurigiisii waxa weeyaan kula soo tufo xaaskiisa aan ugu soo akhriyo waan raacay gurigii baan waxa weeye tagnay gabadhii baan waxa weeye soo fadhiisanay isna waa soo fadhiistay quraankii baan waxa weeye ku bilowno waxa weeye aan ku akhrinay muddo waxa weeye daqiiqada markuu quraankii soconayay ayaa gabadhii waxa weeye wax ka dhaxqayliyeen wixii marka wuxuu sheegtay inuu yahay warhanadlaynin buu hana dulmiin waxa weeye ninkan waanu ishaynaa noo garnaq buu wixii ninkan waanu ishaynaa waxa weeye gabadha qabee noo garnaq waxyaabaha waxa weeye qofka raaqiga aad looga doonayana waxa weeye cadaaladda inaanu ka tagin baa iyaga laftooda kamid ah oo waxa weeye jinka laftiisa deynaan la dulmiin laakiin nin waxa weeye la qanciyo leeyahay war waxa weeye qofkan iskaga tago waxaanu ku jiraa in dulmi yahay la tuso waa waxyaabaha waxa weeye ruqyadu lafteedu laga dhaxelayay farayso way marka waxa weeyaan maxaan idinku garnaqaabaan ku waxaad noogu garnaqdaa buu gabadhan anaa qaba ninkan waxa weeye ma oga muddo waxa weeye imka 5 sano gaadhaysa ayaan qoftan dumar anigu aan qaba oo waxa weeye xaaskaygii tahay oo waxa weeye ma aragtay aan isticmaalaa sida rag waxa weeye dumarka u isticmaalaa marka waxa weeye ninkan xaaskayga haydaayo hayga tago isagu waxa weeye runtii halka laba arimood baa ka yimi horta jinkii isaga waanu wada hadallo waan qanciyay waxaan ku warday gabadhan ninkan waa kaaga horeeyay waxa weeye xaaskiisii bay ahayd mana banaano waxa weeye wax inoo banaan ma aha labada jinsi intay isguursadaan inay waxa weeye meel degaan insiya jiniin waxa weeye isguursadaan meel degaan arrin waxa weeye shariicadeena oo gashay ma dad qof muslimata iska ta gabadh wayga aqbal waa uu tagay isagii markuu tagay baa waxa arqalada ka timi ninkii waxa weeye waxa xilihiisi soo weeraray waxa weeye waxaanu arkayn marka ninkii waxa galay shaki ah inuu waxa weeye markasta moodode wixii inuu gabadhii waxa weeye la tacaamulayo oo waxa weeye ma aragtay hawshii ay socoto ayuu waxa weeye mar walba waxa weeye mooday marka muddo waxa weeye iga maqnaa 7 cashan gabadhii quraan ugu akhriyay ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii waa ka qaaday waxa weeye waan ka tagay maalintii dambe ninkii cirka marayo waxa weeye kacsano xanaaqsan ayaa meeshii ugu yimi dabeetana wuxuu sheekh wixii waa joogaa ma tagin ila weylo gabadheena guriga waan ka kaxeeyay waxaan doonayaa inaan raacdo oo waxa weeye inuu tagno oo guri kale aan geeyay inta maanta ay ixsaan samayso waxaan gabadhaada gala irido hawl baan gacanta ku hayay waan cudur daarto waxaan ku bal maanta hawsha iida maybu tagi maayeen maray waan raacay waxa weeye gurigii baan tagnay ay maaragtay uu geeyay oo koona kala gurigii markaan tagnay ayaa waxa weeye show gabadhii iyo wixiiba uu soo afduubay oo waxa weeye uu soo duubay gurigii waxa ku xareysan ari 20 oo magaalada dhexdeedii haddana gabadhii habeenii maalin bay meesha joogtaa waxay xasuusatay waxa weeye arigii ay meesha ku xareysay inaan waxa weeye show meeshii laga yimi dabeetan intii uu soo maqnaaba waxay qabatay arigii bay istiri bal wuxuu geeyo wax soo si gurigii markaan tagnay baa lagu yiri gabadhii way tagto gurigii bay tagtay ninkii waxa weeye halkiiba waxa weeye naftiiba ma aragtay ay kaga dhici gaadhayo maroro dilaaci ugu weynaa ayaa waxa weeye uu qaaday sheekh gabadhani arrinkan iyada wada waxaan raali bay ka tahay warbal waxba inuu hubinayna horta u kaadiyo ina mariyo gurigi baan tagno gabadhii baan fadhiisino quraan baan ku akhrino waxba waa ka weynay wax dareeno jirkeedii iyo wixii markii hore ay dareentay kumaanaan arag waa la taliyo waxaan ku war waxaan waa wax dhaca waana nooc jinka kamid oo jinnul aashiq la yiraahdo culimada ruqyadu waxa weeye ay wax badan ay garanayaan marka waxa weeye waa nooc tacaamulka jeclaysta waxyaabaha had iyo jeer jinku ku yimaadana qaybo badan baa kamid ah qaybaha uu ku yimaado waxa kamid ah waxa weeye inuu jeclaado sida waxa weeye insiga iyo maaragtay ay isu jeclaadaan inuu uga helo waxa weeye jinkiina qofkan uga helo oo waxa weeye uu jeclaado marka uu doono jinsigiina waxa weeye la sameeyo marka waa wax dhaca weeye arintaas arin aad runtii u la yaab leh oo xalkeedina waxa weeye uu yar fogaaday waxa weeye noqotay marka insha Allah kulli arintaas oo kale waan arkay hadii waqtigu saamaxayna insha Allah mid kale waa ku dari karnaa hal arin oo kale hadii waqtigu deyn ugu yariyeen insha Allah markaas inuu siga kaaftoobi
waqtiga inagu yar raalli wada hanaysa shir jaamaca sidee looga hortagi karaa cudurrada cilaaj ama xanuunada cilaajka sidee looga hortagi karaa wallaahi waxa looga hortagi karaa horta waxaan odhan karaa wax badan oo xanuunadan ka mid ah innaga waxa weeye sababteeda wax kale markaan leeyahay innaga sababteeda wax kale waxa weeyaan waa qofka muslimka ah shareecadeennu waxay u jidaysay tallaabo kasta oo waxa weeye uu qaadayo inuu waxa weeye la yimaado waxa weeye maaragtay xirsi xidhka waxa loo yaqaano oo qofku uu naftiisa waxa weeye uu ku ilaalinayo ama waxa weeye adkaarta waxa weeye sharciga ah ee waxa weeye waaridka inuu waxa weeye ku gaashaanto qofkii dee uu ismariyo isku tufo guriga oo kale qofku waxa weeye markuu ka baxayo waxa weeye guriga ka baxayo النبي عليه الصلاة والسلام وحول وين وقف وحوي بسم الله وين ولا توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أنت وحوي مركو هذا وحلورنا يا كفيت ووغيت وهديت وتنحى عنه الشيطان وحوي وحلورنا يا دوال وإلالي وحوي والقد كفالة قاطي ووالو هنوني شيطان كنا وحوي وكعررية marka waxa weeye waxyaabaha laga hortagi karaa waxa weeyaan adkaartaas oo aynu dayaacnay oo waxa weeye la yimaado adkaaru sabax wal masaa kuwa ugu adag bay kamid tahay oo waxa weeye maaragtay boos kasta oo qofku talaabo kasto qaadayo digri baa waxa weeye loo jiday haduu mariyaa dhiganayo haduu suuliga galayo haduu wax cunayo haduu cuntada ka kacayo haduu masaajidka galayo haduu ka soo baxayo dhammaan waxa weeye waa adkaar weey marka taana wala si adkeeyay adkaarta waxa weeye sabax iyo masaaga iyagana si gaar ah culimadu waxa weeye u si adkeeyaan inuu waxa weeye la yimaado qofku aad iyo aad bay runtii waxa weeye uga anfacaysa waxaana hortag bay waxa weeye ka tahay waxaan soo gaarnay gunaanadkii barnaamijka su'aasha ugu dambeysay ayaan ku weydiinaynaa maxaa talo u soo jeedinaysaa dadka ka cabanaya cudurrada cilaajka iyo ashxaasta ku shaqeysata habka ruqyada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wa thanaa lillaah wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillah qofka waxa weeye xanuunsanaya isagu waxa weeye buka ee xanuunadan waxa weeye ay asiibeen insha Allah waxaan kula talin lahaa qofkaasi inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kalsoonaado hadii waxa weeye uu ka maarmi waado oo ay noqoto qof waxa weeye wax ku tufay inuu tagana inuu waxa weeye qof lagu kalsoonay waxa weeye aqeedadiisa iyo la ka cabsigiisa waxa weeye inuu tago oo waxa weeye maaragtay ruqyadiina waxa weeye wax ka garanaya wixii khuraafaad iyo baadilana waxa weeye inuu ka dheeraado oo waxa weeye runtii waa musiibo kale weyn oo waxa weeye diintiisa dhaawacaysa aqeedadiisa wax yeelaysa haduu waxa weeye qof waxa weeye shirki iyo wax la mid ah wax ku daweynaya oo waxa weeye waxyaabo mukhalafaad sharciya ah waxa weeye wata inuu wax ku daweynayo waxa soo kale inuu qofkiisna ka dheeraado waxa weeye waan kula talinayaa waxaan kale waxa weeye runtii kula talinayaa inuu waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye kitaabkiisa haduu rabo inuu isku daweeyo inuu waxa weeye maaragtay ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah ta'ala maqala waxa weeye runtii ajiiba abu leeyahay man lam yakfihi al-quran fala kafahu Allah wa man lam yashfihi al-quran fala shafahu Allah qofkii waxa weeye quraanku ku filan waayo wax ku filanay laba helay kuma lama helay waa nooc min al-habara oo waxa weeye ma helo wax quraanka waxa weeye maaragtay ka sareeyo ma helayo inuu isku daweeyo qofkii waxa weeye quraankaas uu daweyn waayeen dawaba waxa weeye runtii malaba waxa weeye sheekhaas imaamka laga soo raraa marka qofku inuu quraanka yaqiin waxa weeye markuu isku daweynayo uu kula yimaado waxaan waxa weeye runtii kula talin lahaa inuu waxa weeye qofkaasi Ilaahay waxa weeye gacmo u taagto Ilaahay baryo in Ilaahay dhibka ka saaro waxaan kula talin lahaa waxa weeye adkaarta aynu horeba u soo sheegnay inuu waxa weeye ku dadaalo oo waxa weeye uu qabsado waxyaabaha kale aan kula talinayaa waxa weeye waysa qabka oo kale waxa weeye inuu ilaaliyo waxyaabaha runtii la isku daweeyaguna cajiibka ee muhiimka ah qofkii Ilaahay uu isloogiin cid kale aan ogeeyna waxa kamid ah sadaqada kamid ah iyadana waxa weeye runtii aan faa'iideynayo in waxa weeye qofku uu markuu xanuunsado inuu niyeysto in Ilaahay sadaqada uu ku daweeyo ku caafiyo qof waxa weeye dhiban oo dhib haystana waxa weeye runtii uu sameeyo hal qiso ayaan waxa weeye insha Allah ku daraya oo waxa weeye arintaas sadaqada ku saabsan qof dumaraba waxa weeye kaliyo fadhiisteen dhakhtarkii runtii wuxuu u cadeeyay u sheegay labadeeda kaliyeed inaan midna waxa weeye aan shaqeynayn waa meelahan Sacuudiga waxa weeye ayay ka dhacday waxa weeye qisadaasi waxa weeye dabatana qof dumar oo dan yaraba u tagtay gabadhii waxay ka iibsatay waxa weeye waxa kula heshiisay hal kaliya inay ka iibiso oo waxa weeye lacag ilaa $50,000 meelaha u dhiganta ay ka siisato dabatana gabadhii waxa weeye arrimii oo dhan markay iswaafaqeen dhiigagii laga qaaday arrintii la kala bedeli lahaa ayay gabadhii miskiinada ahayd ooyday dhakhtarkii baa aaminsiin kari waayay markii la kaleedii baa laga saaraya dabatana
gabadhii kale ugu yeedho kuri gabadhii daway ooysa anu qof weey wax kama saari kara miidan hore u soo heshiin say tilmee waa heshiin say u timi ama say ku tiri maxaa kugu dhacay maxaad loo ooysa miyaan ku dulmiyay ma lacagta kugu yar miyaan ku badiyaa see wuxuu jira ma ay tiri wallahi waxaan ka murugaysanay waxa weeye dib la'aanta maaragtay kalidaydaas muhiimadda ay ii leedahay iyo waxa weeye baahida aan lacagtan u baahanay labada arimood ayaga wada heshiinayeen gabadhii waxay uga tanaasushay lacagtii inay waxa weeye qaadato ilaahay dartiiba u siisay iyaduna waxa weeye inay kaliyaheedii meydka iskaga sii jiraan bay go'aansatay kaliyihii baa ilaahay subxaanahu wa tacaala u caafiyey labadii kaliyood ayaa ilaahay xanuunkii uga qaaday dhakhtarkii baa dib u baaray muddo kadib waxbaba waa laga waayay وحنونا مركز صدقته وحوي ولا الدودة إن شاء الله ولادي أنت يربان يدك قلدا كجبحيا قلدا وحوي وحدويني سيجيب وحوي وحدويني يدك وحكت فينا وحن لا ورمضة إلهي سبحانه وتعالى وحد يسوم ود إلهي كجبقة عقيدة دينا وحوي هجاتية إخلاص كين يدينا وحوي وناتية dadka umada muslimiinta ana wax weeye hantidoodan intii ka fogaan kartaan iska dhowr kartaan wax weeye iska dhowra ina wax weeye aqoontiina kordhisaan oo wax weeye haday tii shariicada tahay haday tii daweynta tahaybana ina wax weeye kor u qaadaan iyagana insha Allah saddexda qodob oo igana isteexa iyo walaaltinimo baan insha Allah wada u marinaya waxaan inta ku soo koobaynaa khiyaaray barnaamijkii gaarka ahaa ee ku reysanay Sheekh Jaamac Xuseen Jaamac Wadaad ee ku saabsanaa ruqyada sharci ahaanshaheeda iyo dhibaatooyinka muddooyinkii dambe dadku ay kala kulmayeen goobaha ilaashada ama goobaha ruqyooyinka waxaan inta ku soo koobaynaa barnaamijkaasi waxaana kala socon doontaan insha Allah waxaan baahin doonaa insha Allah billahi kariim maalmaha soo socda barnaamijkaasi waxaan filayaa in faa'iido badan barnaamijkaasi heli doontaan oo sheekhu inooga faa'iideeyay ruqyada iyo faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay iyo sababaha looga hortagi karo ama shuruudaha laga hortagi karo xanuunada cilaajka ee muddooyinkan dambe bulshada aafeeyay وعلى داهر محمد بوس ويدين الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته